shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel ayaa ka mid ahayd shirkadihii saaka sida weyn uga soo qayb galay ololaha lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo uu ku baaqay maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge maamulka iyo howlwadeennada shirkadda Somtel ayaana si wada jir ah uga qayb qaadanaya ololahan lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa Cabdinaasir Daawud Guuleed maarayaha Somaliland ee shirkadda Somtel ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay ka shirkad ahaan u leedahay ka soo qaybgalka ololahan lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa Cabdinaasir Daawud Guuleed maareeyaha shirkadda Somtel Somaliland halka waxaanu ka qayb qaadanaynaa ololihii nadaafadda ee uu ku baaqay maayirka caasimadda iyo golihiisa deegaanka cusub ee lagu nadiifinayay ama lagu bilicda lagu soo celinayay dooxa Hargeysa waxa jooga anaga oo Somtel ah halkan shaqaalihii Somtel oo dhan ayaa jooga oo muxuu ahaayay hawsha ka qayb qaadanaya waxay runtii noqonaysaa waxaan soo xidhnay xafiisadeedii waxaan u soo baxnay danta guud waxaan u soo baxnay baaqa uu maayirku ugu baaqay ummadda Hargeysa caasimadda Hargeysa joogta inay ka qayb qaataan bilicda iyo muxuu ahaayay nadiifinta dooxa Hargeysa waxaan leeyahay ummadda Somaliland ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa danta guud yaan laga gelin ganjeel la iskaga soo xidhin oo dantii guud waxa laga galay ganjeelka gudaha lagu jiraa dibadda marka loo soo baxo qofka xashiishkiibu dibadda dhigaya dhagax buu isor dhigayaa waxa leeyahay ummadda Somaliland ee caasimadda ku nool ha qaataan baaqa meel kasta joogaan ha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda oo aan maayirka ka codsanayno inuu joogto noqdo hadii ilaahay yiraahdo dhammaan Somtel shaqaalaheegii oo dhan halkan ay saaka joogaan shantii subaxnimo iyo barkii waqtigii maayirku ballamay bay yimaadeen waxay joogaan muxuu ahaa ka shaqaynayaan saad arkaysaan nadaafadaas maayirku baaqay aad iyo aad buu mahadsan yahay maayirka waxa leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba bil kasta mar inooga dhig si aynu magaalada u wada nadiifino aad baa mahadsantihiin hoonkeybkiib dhinaca kalena Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi madaxa suuqgeynta ee shirkadda Somtel ayaa isna ka hadlay ololahan ay maanta shaqaalaha iyo maamulka shirkadda Somtel ka qayb qaadanayaan nadiifinta dooxa weyn ee magaalada Hargeysa saaka waxa farxad iyo sharaf inoo ah inaynu ka qayb qaadanayno ololihii caasimadda ee uu ku dhawaaqay maayirka cusub iyo golaha deegaanka ee maxayday cusub aad iyo aad baan noogu mahad celinaynaa runtii dhammaanba shaqaalaha shirkadda Somtel oo iyaguna qayb lahaad ka qaatay saaka sayno arkaynaba halkan waxa maaragtay ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda dhammaan shaqaalaweynihii shirkadda Somtel oo uu horkacay gudoomiyihii shirkadda Somtel Cabdinaasir Daawud cidi kama maqna shirkaddii Somtel saaka iyo maxayday baabuurteedii iyo dhammaanba waxay soo diyaar garoobeen inay ololaha nadaafadda ka qayb qaataan saaka goobta waxay soo gaadheen 5 barkii aroornimo imika saacadu ay ku sii dhowdahay 7 aroornimo ilaa 7 barkiina wali waanu joognaa waxaan insha Allah rajaynaynaa haday gaarayso ilaa galabta insha Allah inta la nadiifinayo inayna ka tagin waxa jira goobo gaar oo aanu dooranay marka imika ilaa 2 goobood baa dhameynay goobtii saddexaad baan hadda u gudbaynaa dhammaan shaqaalaha shirkadda Somtel ay u gudbayaan waxaan insha Allah rajaynaynaa oo aanu bulshada ugu baaqaynaa nadaafadda insha Allah inaynu kor u qaadno dooxan inaynu nadiifino meel qurux badan insha Allah inuu noqdo waxaanu Somtel ahaan diyaar u nahay inaanu qaybteeda ka qaadano haday noqoto maanta iyo maalmo badan oo kale diyaar baanu insha Allah inaanu nimaadno oo aanu ka qayb qaadano ilaa ay magaaladu nadiif noqonayso Somtel way garab taagan tahay golaha deegaanka ee cusub iyo baaqooda waxaanu bulshada ugu baaqaynaa maanta marka la nadiifiyo insha Allah inaana bariyadan xashiishkii lagu soo celin ee maxayday insha Allah uu nadiif inoo haado halkan goobtan iyo goob kasta la nadiifiyaaba aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha dawladda hoose dadka kale muwaadiniinta iyaguna maxayday ka qayb qaadanaya shirkadaha kale iyo dadka kale maxayday kala duwan ee saaka nadaafadan iyo barnaamijka ka qayb galaya waxaan leeyahay insha Allah yaan laga caajisin anaguna Somtel aan diyaar baan u nahay shaqaalaha Somtel iyo gaadiidkeeda iyo dhammaanteeba inaan insha Allah ka qayb qaadano waanu ka qayb qaadanaa insha Allah sidaad arkaysaan waxa halka maaragtay jooga dhammaan shaqaalaha shirkadda Somtel oo saaka xafiisyadii soo wada baneeyay hawshan waa hawl maaragtay waxa weeye qaran waa caafimaadkeeni waa nolosheeni waa quruxdeeni waxaanu rajaynaynaa insha Allah hadii la ka dhigo arinta inaynu ku guuleysano oo aanay naga noqonin arin laabla kaca laakiin ay naga noqoto insha Allah arin wadaniyadeed oo aynu ku nadiifinayno dhulkeena Somtelna way garab taagan tahay dawladda hoose iyo dhammaanba bulshada maadaama maxay bulshada ay tahay
macaamiishayadii caafimaadkoodaanu ka qayb qaadanaynaa daryeelkoodaanu ka qayb qaadanaynaa noloshoodaanu insha allah ka qayb qaadanaynaa waxaan rajaynayaa insha allah inaannu maanta iyo maalmo badan oo kaleba aanu u soo bixi doonno aanu diyaar u nahay hawshan iyo hawlo kaleba inaan ka qayb galno aad iyo aad baad u mahadsantihiin wax kastoo loo midoobo gacmaha laysu qabsaa runtii quruxdaas bay leeyihiin far keliya fool ma dhaqdo waxa weeye bulshadu markay isku tagto shirkad ganacsato dawlad maxay hayday dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada markaasba horumar la gaari karaa markaasba wax la qaban karaa diyaar baan annagu insha allah Somtel ahaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa saxaafadda oo ilaa salaadii subax ilaa hadda halkan taagan oo tabinaysa maaragtay maxay yeelay waxa meesha ka dhacaya iyo sida bulshadu soo aabushay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leeyahay bulshada maaragtay insha Allah caajisina marka aad ku laato kala tagina aynu nadiifino insha Allah targetkeena iyo hadafkeena aan gaarno insha Allah maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa ugu dambeyntii isnoo mahadnaqay maamulka iyo howlwadeennada shirkadda Somtel madaxdiinii qofkii ugu sareeyay ilaa qofkii ugu hooseeyay halkan marayaan aad iyo aad baan ku mahadnaq waa mahadsantiin aad baan mahadsantahay shaqadana aan bilowna insha Allah